bal qiyaas waxa ay qaadan karto safarkaaga halkan ka bilaabanaya. waxaa dhiirigelinaya saboolnimo iyo amni dari. gawaari ayaa qaybta dambe la isugu geeyay dadkan. bal ka waran haddii halkan uu gaarigu kaaga ciladoobo, qof ku caawisaana aanay jirin. ka waran haddii biyuhu kaa go'aan oo aad haraad nafla tahay. tani waa sheekada saaxiibkay weriye Cabdiraxmaan Colaad, kala soco safarkiisii Liibiya ilaa iyo Sweden. YouTube channelkayga Xog Waraysi TV. halkan ayay ahayd riyadeydu, laakiin waxaa ka sokaysay khatar aad u badan oo xitaa aan nafteeda ku way karo. marka hore waxay ahayd fikir yar oo maskaxdeeda ku dhashay, laakiin tahriib hadal laguma arko. marka aad soo safartid ama aad ku bilaabato shaqada tahriib ayaad garan kartaa dhibaatada uu leeyahay. runtii markaan xasuusto safarkayga waxaan ku soo waayay qaar ka mid ah saaxiibaday oo aan isla soconay habeenkii ugu dambeysay doonta. waxaan xasuustaa yarkii imaamka salaada maqrib naga bixiyay ayaa suuxiyay markii nala badbaadiyay meedkiisaan doonta ka helna. ma garan karo habeenkii ugu dambeysay aan ka soo tegaya xaafadayda ama habeenkii ugu dambeysay aan gurigayga seexdo sidaan curudayda habeenkaa uga soo tegay. waxaa jira asxaab fara badan oo ila socotay ama iga horeysay oo riyadooda inta aysan rumoobin. walaalkay, adigay daawanaya ama adigay dhegaysanaya ma kugula talinaya inaad soo taag. ugu dambeyn waxaan imaanay halkii laga raaci lahaa doonta, iyaduna waa lacag kale, waana $2,200. habeen 7 saac habeennimo 7 saac oo habeennimo ayaa nala soo geliyay badda. waxaana subaxii nala ka badbaadiyay xeebaha Talyaaniga. waxaana doontaas ku weynay saaxiibo badan oo safarka u heli ahaa. qaarkood aan isku soo barannay xeradii ugu dambeysay. waxaa ka mid ahaa mu'adinkii salaadii maqrib nagu soo tujiyey habeenkaas xeradii bin Waliid. allah u naxariisto saaxiibay. waxaan imaaday halkan oo ay ahayd riyadayda. wax badan oo riyadayda waa ii rumowday. waxaa qayb ka mid ahayd canugteeda yareed oo iyadoo hadlaynin aan si niyada ku soo macsalaameeyey. hadda waxay halkan igula nooshahay iyadoo hadlayso, iyadoona garan karta sababtoo abeed u soo tahriibay. hadda ilaahay waa ii rumeeyey riyooyin fara badan, welina qaar baa qabyay ah. tani waxay ahayd noloshaydii oo dhammaystiran. waana jeclaa inaan la wadaago si asxaab fara badan oo aniga camal ah ay uga tusaale qaataan. waxaan ku rajaynayaa adiga i daawanaya iyo naftaydaba horumar inuu ilaahay nala fudud kaga siiyo.